Manaal waa gabar Soomaaliyeed. Manaal waa gabar madax bannaan. Manaal waa gabar caadi ah. Manaal waa gabar xor ah aan cidna xabsi ugu jirin. Aniga ma awoodo inaan caayo gabar masaakiina. Gabar walba waa walaashay, Manaalna waa walaashay. Jilaagana qofka jilaaga ah noloshiisa dhabta ah iyo markuu wax jilayo isku mid maaha. Waxaan filayaa jilaagana 24 hours gudahood inaad ku ogaa doontaan wajigiisa dhab. barteeda YouTube ka subscribe saara gambalaalka furas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran barteeda YouTube ka meel walbo dunida aad ka joogtaan. Haddii maalin idin tahay maalin wanaagsan, haddii habeen idin tahay habeen wanaagsan. Intaa kadib waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrimo dhowr ah. Waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob. Hase ahaatee intaan guda gelin qodobadaas waxaan rabaa inaan mid idin sheego. Midaasoo ah labadii maalin ee ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa aad loo hadalhayaa Manaal Beeldaaje. Hadday noqoto Facebook, hadday noqoto TikTok, hadday noqoto YouTube. Waxaan se rabaa inaan maantay laba qodob idin caddeeyo. Qodobka koowaad oo ah Manaal waa gabar Soomaaliyeed. Manaal waa gabar madax bannaan. Manaal waa gabar caadi ah. Manaal waa gabar xor ah aan cidna xabsi ugu jirin. Dad badan oo Manaal hadal hayo waa arkay, rag iyo dumarba, waliba dad waaweyn oo aanan rabin halkan magacyadooda inaan ka xuso u gafaya gabadhaas yar ee walaasheen ah. Waxaan se ku weydiinayaa adiga Manaal u gafaya ama adiga Manaal commentiga ku caynaya, goormay ceeb noqotay in gabar madax bannaan oo xor ah oo aan cidna xabsi ugu jirin ay waqti la qaadato dadkeeda? Goormay ceeb noqotay? Goormay caadi noqotay inaad caayado ama u gafto? Taas waa mid. Manaal waa gabar madax bannaan. Shalay marway ahayd, maantayna waa xor oo waa qof madax bannaan. Ciday doontay u tegi kartaa, ciday doontay waqti la qaadan kartaa. Waxay u tagtay abtigeed, aniga walaalkeeda ahay. Dhammaan dadka ay la joogtay waa dad walaalaheeda. In ay annaga noo imaato ama aan u tagno ceeb maaha, laakiin waxaa ceeb ah in Manaal la caayo ama loo gafo. Dadka Manaal wax ka sheegaya ama Manaal u gafaya ama Manaal views ku raadsanaya, Ilaahay ka baqa. Ilaahay ka baqa. Manaal waxay u tagtay abtigeed, waa uu soo dhaweeyey. Aniga waa u tagay, waa soo dhaweeyey. Si sharaf leh, waqti qurux badan soo wada qaadanay. Dad walaalaha nahay, waa gabar walaasheena, waa gabar YouTube-ka ku soo biirtay. Maadaama aan YouTuber ahay, ayadana ay YouTuber noqotay oo ay YouTube ku soo biirtay, kaliya waxaan ugu tagay inaan farxad la qaato. Laakiin in gabar walaasha ah aad aflagaadeedo oo aad ku tilmaamto inay tuuga tahay. Fiiri commentiyada dadka waxay ku qorayaan eega, waxay leeyihiin lacag bay xatay. Inta fiiri dumarkii xataa waa ay caynayaan. Midna idin sheego, waxaad maqashaan ha aaminina ee waxaad aragtaan aamina. Manaal waa gabar sharaf leh, waa gabar qiimo leh, waa gabar dhowrsan, waa gabar intii la doono ka wanaagsan kuwa iska dhigaya inay wanaagsan yihiin. Hase ahaatee waxaan kuu sheegayaa, gabar hadday kula dhalatay oo aad damiir leedahay, adigoo qof kale iska dhaadhicinaya oo aan ku aqoon, ha u gafin gabar walaashaa ah. Adiga gabar walaashaa ah in loo gafo ma rabtid. Nin walba gabar waa la dhalatay, gabar waa u dhaxday, gabar way dhashay. Caay aflagaado waan ogahay dadka ka dambeeya arrintaas. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, beenta si walba oo loo qarqariyo maalin unbay bannaanka imaataa. Maalintay bannaanka imaatana waa maalintay ugu foosocunta. Wax badan oo idinka qarsan ayaa jira, laakiin waqtigooda ayay imaan doonaan. Midna aan idiin sheego, aniga gabar walbo Soomaaliyeed waa walaashay. Ama inac ama igu jeclow. Gabar walba oo Soomaaliyeed farxadeeda inaan ka qayb qaato
waa waajib isaaran maxaa yeelay aniga 5 gabdhood ay dhalatay mase waxaad rabteen inaan manalcaayo oo u soo fadhiisto YouTube-ka oo aan dhaho waa qof xun maxaysa ma waxaad rabtiin fiiri waxaad hadda aniga igu caynaysaan oo aad shiino culay ku caynaysaan oo aad amooro ku caynaysaan ma waxaad rabteen inaan inta soo fadhiisano aan manalcayno waxaan arki jiray gabar loo hiiliyo laakiin dhaqankii Soomaaliyeed waa bedesheen waxaad bilowdeen inaad gabar caydaan inaad gabar caydaan hase ahaatee cayda aad caynaysaan adinka yaysan idin dhibin malaa'iga garbihiina saaran ha dambaabina gabadhaas masaakiinta ha ku dambaabina ha ku dambaabina waa gabar sharaf leh waa gabar qiimo leh waa gabar wanaagsan waa gabar dhowrsan waa walaashii iga yar oo kale weligeena waa garab taagnaa doonaa ayada iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan waxyaabaha waalida waxaa kamid ah gabar haddii la furo sawir lama geli karo miya video lama duubi karo abay soo dhawo lama dhihi karo lama soo dhawee karo kaalay ma hindi baan nahay annaga markii hindida markii naagta la furo qol baa lagu xiraa waa la adoonsadaa madaxa laga garaacaa dadka lama hadli karto maqbiya laga dhigaa furiinka goormo ceeb noqday war ilaahay baa noo jideeyay in la isguursado isla ilaahaygi noo jideeyay in la isguursado oo la ismiirsado ayaa haddana wuxuu noo jideeyay furiinka shalay xaasay ahayd maanta xaas maaha manaal inta soo fadhiisatay hadal lid ku ah ama durin ah saygeedu hore kama isa sheegin gabadhaas waa gabar yar waa gabar walaasheena waa soo dhaweynay intaas iyo in ka badanba waa ay naga mudan tahay gabar walba Soomaaliyeedna waa ay naga mudan tahay abtigeeda soo dhaweeyay ana walaalkeeda u tagay amoorna waa walaalkeed aniga si kastoo la caayo waxba igama dhibayso because Soomaalida waa aqaana aniga waa dad qeyra Japaanka ku dheereeya qofaa soo fadhiisa waa ooyaa waa la ooyaa qof the use oo saqajaan ah oo bastard ah oo aan dhaqan lahayn oo aad ogtaa wuxuu yahay aan inta Soomaalidu soo fadhiisto wuxuu isaga dhigayaa malaa'ig aniga asadadkana la qeyro haya waa jilliin laakiin ani jilliin ma aqaan maanta waxaa laga yaabaa inaad ila yaabto berina aad dhahdo wallahi maanta wax fiican ku hadashay bila aadanka saxda saasi u nool yihiin waxa aad qabto iyo waxa aad tahay dadka hortooda marka imaato ka sheeg waxaad ahayn iska dhigin haddaad iska dhigto waxaadan ahayn maalintii la ogaado waxa dhabta ah oo aad tahay maalintaas in wajiga cawra ah ku leedahay camal waa dhuudhuumanay laakiin waxaan filayaa qof walba oo kaamirada horteeda isaga dhigay inuu yahay qof wanaagsan in maalin waliba aan dheereen waliba dhawaanahan la ogaa doono wajigiisa dhabta ah qof walba oo jira annaga Hollywood ma joogno Bollywoodna ma joogno jilliin uma baahin haddaad nin sax tahay ama haddaad naag sax tahay sida aad tahay dadka ka hor imaw taas waa mid manaal dad badan oo aniga ehelkayga ama qaraabadeyda ah ama aan isku qabiil nahay ama siyaabo kala duwan aniga ii yaqaan qaarkoodna aniga maaragtay barteeda YouTube-ka ku xiran aniga ma dhahayo taageere iyo fans iyo waxaas ma dhahay qof walba aniga ii yaqaan ima taageere waa walaalkay qof walba oo YouTube-kayga subscribe saara ama qof walba oo maalin idaawado aniga taageere iyo ma ahane waa walaalkay hatta kan caayo hatta kan inab aan ogahay inuu si jecleen waa walaalkay baa ila soo xiriiray waxayna igu dhaheen Ayub Carlo waxaa tahay nin bilaa damiir ah Ayub Carlos waxaan ku maleey jirnay inaad tahay nin qadiyad leh waxaad dhabarka ka toogatay ama aad xumayday ama aad u gaftay nin walaalka ah oo kugu qabiila dad badan waxaa laga yaabaa dadkaas in hadda commentiga ay wax ka soo qorayaan dadkaas waa laga yaabaa barkii waa dad igu xiran dadkaas aan rabaa inaan mid dhaho aniga marka koowaad magacayga waxa la yiraahdaa Ayub Ahmed Hussein dadkuna waxay ii yaqaanaan Ayub Carlo dadku waa ay ii malay karaan
inaan ahay qabiiliste, waa ay ii malay karaan inaan ahay doqon, waa ay ii malay karaan inaan ahay nin fiican, laakiin dadka siday ii maleeyaan waxaa ka muhiimsan sida saxda ah ee aan aniga ahay iskuna ogahay ayaa ka muhiimsan. midda koowaad, aniga qof qabiil uguma heliyo. midda labaad, aniga ayuu kaarla ah dulmi aan u jeedo indhaha kama qarsan karo barkii uma dhalan. taas waa mid. aniga ninka aad leedihiin isku qabiil baad tihiin ama isku jufaad tihiin oo waa ka helide, maya, isku qabiil ma nihin. wallaahi oo billaahi oo tullaahi inaan isku qabiil ahayn. maxaa yeelay ninkaas adreeskiisa saxda ah waa uu qaldan yahay. maalin maalmaha ka midana waa ogaa doontiin. xitaa hadduu adeerkay aabbahay la dhasha ou dhali lahay, xitaa haddaan isku jufo hoose ahaa lahayn, marnaba lagama yaabi lahayn inaan ninkaas qabiil ugu heliyo. cid walboo qaldanna qabiil ugu heli maayo. shalay Sharma Boy iyo Daahir Cali Sow markay is haysteen waa ka hadlay. dad badan oo idinka mida waxaa idhaahdeen qabiilista tahay. maantay dadkii ayaa haddana waxay ileeyihiin damiir ma lihid. shalay markaan Daahir Cali Sow iyo Sharma Boy arrintooda ka hadlayay sida ila tahay anoo uga hadlaya oo ilaahay ugu og yahay, dadaa waxay dhaheen ayuu Carlos Daahir Cali Sow waxaa ugu helinaysaa qabiil. dhagjalaq uma siin because inaan aniga Daahir Cali Sow qabiil ugu helinayn anaa og. Shiino Culay oo Sharma Boy ku reer ah uma aana helin, cid aan qalad ka galna ma leh. laakiin haddiiba aad ka dhigteen in ninka aad sheegaydiin oo ugu heebiya, ku laabta. ninkaas wuxuu ka dhashay dadka Soomaali ugu sharafta badan, laakiin ha ku qanco dadku ka dhashay, adreeskiisana ha saxo. waa is ognahay, asna wuu og yahay, ilaahayna wuu og yahay. wallaahi dadka mooda inaan ahay bilaa damiir taa ha ogaadaan. horta first of all, ninkaas iyo aniga isku adrees ma nihin. waxyaabaha waalida ah ee aan la yaaba ayaa waxay tahay dadka aniga aan ka dhashay waa dad sharaf leh. wallah, adreeska haddaad ayaga ka dhigato 50 sano xataa waa iskaga dhex jiri kartaa, ma lagu fahmaayo markii waa dowlad. laakiin ababa Puntland aan adrees ka dhiganaa ama Somaliland 1 week lagu fahmaa, 1 week. laakiin ninkaas waa xariif. xaafadeedii adrees ka dhigtay wayna adagtahay in la fahmo, laakiin waxay u badan tahay in la fahmi doono. waadna ogaan doontaan hadalkayga. xitaa haddii adreeskiisa uu saxnaa lahay oo aniga iska badaa qabiile, adeerkay aabbahay la dhasha ama la dhasha uu ahaa lahay, wallaahi oo billaahi oo tallahi anaan rabban uga dhimayn. ma necbi, waa walaalkay Soomaaliyeed. laakiin ma awoodo inaan manaal caayo, ma awoodo inaan manaal wax un ka sheego. manaal abtigeed baa soo dhaweeyey, abtigeed baa YouTube u furay, abtigeed baa u kala kacshay. dadka u qalma in loo mahad celiyana waa adinka, kuwiina subscribe-ka u saaray, kuwiina daawada gabadhaas yar ee masaakiinta ah. sharaf baa leediin ummadda Soomaaliyeed. laakiin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ma wada wanaagsana. qaar xun oo waxaa ku jira aan damiir lahayn ee gabar yar walaashood caynaya. manaala la caynaa, waxaa la leeyahay tuugo waaye, lacagay xatay, nimanay u tagtay, 3 nin ay u tagtay. no, wax aqliga keena, wax aqliga qaada. war ma gabar maa la caynaya? gabadhan waa xor, hindi maaha. gabadhan hindi maaha. anigay caaya jaajowsi dheh, waxay dhahdaa ii sheeg, ninaan qadiyad layn dheh, ninaan raganimada wax kuma leh, laakiin gabadha daaya. jilaagane, qofka jilaaga ah noloshiisa dhabta ah iyo markuu wax jilayo isku mid maaha. waxaan filayaa jilaagane 24 hours gudahood inaad ku ogaa doontaan wejigiisa dhabta ah.
aniga ma awoodo inaan caayo gabar masaakiina gabar walba waa walaashay manaalna waa walaashay waa yukaar loo soo idin intaasay iga dhan tahay waa ku mahadsantaha daawashada muuqaalka haddaad horay iila socoto waa ku mahadsan tahay haddaad hadda ii timidna subscribe ii saar taliye muuqaalkana like garee si dad badan uu gaaro guuleysta